نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم salaadiinta sharafta badan ee bariga galbeedka kala yimi ee ugu horeeyo suldaanka aynu maanta halkan isugu nimi caleemasaarkiisa suldaan xasan suldaan cabdilaahi axmed mire waxaan suldaanka kale ugu daraynaa aan dib ka sheegi doono haweenkeenna sharafta badan culimaadudiinka siyaasiyiinta golayaasha iyo xukuumadda oo wasiiradu ay ka joogaan gudoomiyaasha xusbiyada guurtida cuqaasha saxaafadda iyo ningarboodka kale dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi ilaahay baa mahad iska leh waxaan halkan mar kale ka salaamayaa maamulka gobolka togdheer oo guddoomiye ku-xigeenkii iyo taliyaashii ay fadhiyaan ilaahayna waxaan ka baryayaa guddoomiyihii gobolka ka dhintay ilaahay uu naxariistii janno siiyo nin wanaagsan buu ahaa inaynu xusnaana waajib weeye ilaahay isaga wix islaama naxariis jannaa siiyo intaa ka bacdi waxaa leeyahay hadalku hana koobnaado hana yaraado waxna ha laga garto maanta madal qurux badan baynu fadhinaa waxaa weeye waa 22kii bishii 6 weeye suldaan xasan suldaan cabdilaahi waanu soo dhaweynaynaa golaha dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda inta af Soomaaliya ku hadasho dhan waanu ku soo dhaweynaynaa suldaan xasan waxaan u malaynayaa maanta isu sheegi mayno waa suldaan sharriban waa suldaan waxa weeye in badan soo shaqeeyey waa suldaan ku suntan xasan nin nabadgeliyo waa suldaan ku suntan nin hogaamiye beeleeda waa suldaan ku suntan nin ummad ururiya oo aad garanaysaan suldaan xasan intii waxa weeye uu nabadgelyada iyo hogaaminta beeshaba uu ku jiray iyo gobolkaba inaad garanaysaan guulihii faraha badnaa iyo ururintii faraha badnayd iyo mas-uuliyaddii faraha badnayd iyo hawlihii faraha badnaa kaalmaha uu ka soo qaatay waynu garanaynaa intaas waxaan u malaynayaa mikrofoonkuna waa xuya waxaan u malaynayaa hallo waayo hadalka waa soo koobaynaa waxaan u malaynayaa suldaanka la dardaarmi mayno waa shirrabaya suldaan xasan waxaan idhi dib baan ka sheegi doonaa aabbihii suldaan cabdilaahi waxaan u malaynayaa suldaan cabdilaahi oo aabbihiiya suldaan maxamuud guuleedna wuu ku daray laakiin meeshuu suldaan ku noqday baan sheegayaa suldaan cabdilaahi annagaa dhalay oo boqortooyo ka soo jeedna oo abti u ah marka waxaa weeye oo boqortooyinka waaweyn ee soomaaliyeed ka mid a inta af soomaaliya ku hadasha garaadkii oo halkaa fadhiyaana waa abtigiisii gaarka ah weyn oo maanta madashuu fadhiyaa suldaanku waa ballaaran yahayoo waxaa weeye gobolka togdheer baa guddoomiye ku-xigeenkii yidhi suldaanku buuhoodnana waa ku dhashay gobolka cayn ama buuhoodnana wuu ka mid yahay waxaa weeye suldaan waxaan ku leenahay soo dhowow ku soo dhowow golaha dhaqanka waanu ku soo dhoweynaynaa suldaan xasan suldaan cabdilaahina dee sameygiisii buu noqday oo suldaankii guuda anigana waxaa sharaf gaara ii ah oo halkan aan ka sheegaya inaanu meelo badan aanu iska shabbahno waxaa weeye waxaa kow ka ah aniga 22kii bishii juun baa lay caleema saaray isagana maanta waa 22kii bishii juun wey halkaasna waanu ka wada soconnaa oo waxaa weeye maalin taariikhiya oo waxa weeye anniversary aniga ii ah oo waxaa weeye qiimo badan baa isna la caleema saaray xalaytoo annagu waxaanu soo baxnay oo laascaanood ka soo baxnay 3dii habeennimo waxaa weeye halkanna waxaanu soo gallay ilaa 7dii waxaanu u guuraynay habeennimadaas iyadoo howlo badan noo yaaliin waxa weeye inaanan suldaan xasan oo aanu awow nahay oo suldaan waxa weeye runtii qaaliya inaanan goobtaa ka maqnaan ilaahayna waana nabad keenay cid allaaliyo ciddii soo xushayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cuqaashu haddii nin la dooranayo ay ugu horrayso ila dhaqanka waxa weeye waa la garanayaa waxay caddayn u tahay in ninkaasi beeshu ay soo dooratay bay caddayn u tahay waa idinla qaadannay waadna caddayseen waxa weeye macsuumadda ugu horraysana laascaanood baan ku macsuumaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu